gabadhan mar walba waxay ahayd ardayda ugu sareysa imtixaan kasta, laakiin markii la gaaray imtixaanka gelitaanka jaamacadda hal eray ayay qori weyday sababtoo ah imtixaan walba ka hor qof kale ayaa u qori jiray maalintaas. Ninka u qorayay wuu ku xayirmay taraafikada, mana uusan imaanin waqtigii ka hor intaan imtixaanka bilaaban. Gabadhu way sugaysay markii aan cidna soo muuqan, waxay bilowday inay dadka qalaad weydiisato gargaar. Nasiib darro, hal qofna diyaar uma ahayn inuu caawiyo. Markii ay aragtay in aysan door kale haysan, waxay u jeesatay kormeeyaha imtixaanka iyadoo rajaynaysa mucjiso. Xataa macallinkii ayaa ka quustay. Markii ay fiirisay gacmaheeda naafoobay, waxay dareentay tabar darro buuxda. ma rabin in 3 sano oo dadaal ah ay si fudud u khasaarayaan. Marka waxay isku dayday inay warqadda imtixaanka ku furto afkeeda si ay qalinka ugu qabato oo ugu yaraan magaceeda u qorto, laakiin intay dadaashay ma shaqayn. markii imtixaanku dhamaaday, waxa kaliya ee ay dareentay wuxuu ahaa niyad jab. Iyadoo xanaaqsan oo qalbi jabsan, waxay kor u gashay saqafka sare iyadoo diyaar u ah inay nolosheeda soo afjarto. Way ogaatay inuusan jirin qof ay eedayn karto, laakiin waxa ugu xanuunka badnaa ayaa ahaa sababta dhabta ah ee qoraha u xayirmay. Waxay noqotay in gabadha wasiirka arrimaha gudaha ay dukaameysanaysay iyadoo isticmaalaysa awoodda aabaheed. Waxay wadada u xirtay danteed. qorihii gabadhu ku tiirsanayd wuxuu ku xayirmay 2 saacadood oo dhan. markii uu ugu dambayn gaaray saqafka sare, isagoo quus ka taagan sidii uu u badbaadin lahaa, kadib wuxuu maqlay qaylada dadka hoos joogay. Gabadhu way isdishay, da'aad u yar oo qurux badan iyadoo jirta. aragtidaas ayaa qalbiga ninka burburisay. isla markiiba wuxuu ku dhaartay inuu u dagaalami doono cadaalad. habeen kasta oo jimce ah, kooxdan waxay iska dhigi jireen sidii adeegayaal waiters, waxayna si qarsoodi ah ku geli jireen guriga nin taajir ah si ay wax uga xadaan. laakiin markan waxay maqleen wax la yaab leh. ninkii taajirka ahaa wuxuu sheegay inuu safar ganacsi u baxayo isaga iyo xaaskiisa, isla markaana aanay guriga joogin maalmo soo socda. markii ay maqleen arrintaas, qorshihii tuugada ayaa isbedelay. waxay go'aansadeen inay ka xadaan guriga marka uu cid la noqdo si ay si fudud ugu dhacaan. mid ka mid ah wiilasha ayaa soo bixiyey qalab, wuxuuna ku hubiyey kamaradaha guriga oo dhan. waxay ogaadeen in hal kamarad oo keliya laga rakibay albaabka hore, mana jirin wax kamarado ah oo gudaha qolalka ku rakiban sida qorshuhu ahaa. markii xafladii dhammaatay oo dadkii oo dhan baxeen, tuugadii waxay si qarsoodi ah isku qariyeen meel gees ah, waxayna fadhiyeen qolkii kontaroolka habeenkii oo dhan. subaxdii markii ay arkeen in ninkii taajirka ahaa iyo xaaskiisii ay guriga ka baxeen, aad ayay u farxeen. gabadhii waxay istiri, hadda annagaa gurigan iska leh. labadoodii waxay bilaabeen inay si raaxo leh ugu dhex socdaan guriga oo dhan, iyagoo ka dhigtay sidii iyaga oo milkiilayaal ah. markii ay ku dhaweeyeen inay bilaabaan xatooyada, wiilkii ayaa helay fariin saaxiibkiis u soo diray. saaxiibkii wuxuu u sheegay in $100 milyan laga helay guri kale, islamarkaana uu si degdeg ah u baahan yahay caawintiisa. wiilkii wuxuu yidhi, waan tegayaa, markaan ka shaqeeyo halkaasna waan soo laabanayaa. markii wiilkii baxay, gabadhii waxay isku tuurtay sariirta ninka taajirka ah iyadoo isleh, lacagta hadda anigaa leh. laakiin si lama filaan ah ayaa iftiinka gaariga hore loo arkay, taasoo cabsi ku abuurtay. milkiilihii guriga ayaa si kedis ah ugu soo laabtay, isagoo aan xaaskiisii wadan, balse la socda saaxiibkiis ganacsi. gabadhii waxay isku qarisay gadaasha kursi dheer sofa iyadoo aamusan. laakiin daqiiqad kadib, saaxiibkii ganacsiga ayaa si lama filaan ah ugu dhacay kursiga. gabadhii waxay maqashay ninkii taajirka ahaa oo ku shubay sun cabitaankiisii si uu hantidiisa oo dhan u helo. ninkii wuxuu jiiday meydkii oo meel kala geeyey. gabadhii aad ayay u baqday, waxayna go'aansatay inay baxsato, balse iyadoo baxaysa ayay si kama ah u riday galaas khamri ah. ninkii taajirka ahaa wuxuu dareemay in qof kale guriga ku jiro. isla markiiba wuxuu ka xanibay albaabada guriga casriga ah ee telefoonkiisa, wuxuuna damiyey calaamadaha telefoonka. network signal. hadda telefoonkii gabadha signal ma hayo, booliiskana ma wici karto. ninkii wuxuu qaatay bastoolad, wuxuuna bilaabay inuu guriga ka baadigoobo. gabadhii mar kale waxay isku qarisay gadaasha kursiga. markii ninkii soo dhowaaday, waxay tuurtay shay qurxin ah dhinac kale si uu dareenkiisa ugu jeesto halkaas. markuu ninkii u jeestay dhinaca codka, gabadhii si degdeg ah ayay hoos ugu degtay dabaqa hoose. albaabadii oo dhan waa xirnaayeen, markaasay kursi qaaday si ay daaqadda u jebiso. jebinta mar koowaad ma aysan suurtagelin. markay isku dayday mar labaad, ninkii ayaa arkay. haweenaydan ayaa baska soo gashay si ay gurigeeda ugu noqoto. dhammaan raggii baska saarnaa waxay u baneeyeen kursi, laakiin iyadu ma rabin inay midkood ag fadhiisato. markaasay aragtay ay kursi ku fadhiya. waxay ka fikirday inay ka kiciso, balse si lama filaan ah ayuu eeygu u bilaabay inuu ku qayliyo. qofna ma lahayn geesinimo uu ku fadhiisto kursiga uu eeygu degan yahay. raggii waxay uga digeen hala diriirin eeygaas, laakiin haweenaydii way iska indhatirtay hadalkooda. si toos ah ayay ugu tagtay eeyga, waxayna fadhiisatay kursigiisa agtiisa. eeygii wuu cadhooday, si xoog ahna buu u qaylinayay isagoo isku dayaya inuu ka kiciyo kursiga. dadkii oo dhan waxay bilaabeen qosol. haweenaydii ayaa caro gashay, waxayna si qaylo leh ula hadashay eeyga. eeygii wuu baqay, wuxuuna baneeyey kursiga. xitaa darawalkii baska ayaa yaabay, weligiis ma filayn qof uu eeygiisu ka adkaan doono. wuxuu fursadda ka faa'iidaystay oo haweenayda u marti qaaday in ay filim wada daawadaan.
dadkii oo dhan waxay u maleeyeen inay diidi doonto balse si lama filaan ah ayay haa u tiri. Habeenkaas John wuxuu eeygiisa u dhiibay saaxiib si uu haweeneyda ula kulmo. Waxay u baxeen filim laakiin si kedis ah eeygii ayaa meel ka soo baxay oo ballantii ku khalkhalgeliyey. John wuxuu eeygii dib ugu qaaday guriga wuxuuna ballantii dib u bilaabay. Markaas kadib labadooduba waxay u baxeen xeebta halkaas oo ay xiriirkooda si rasmi ah u cadeeyeen. Tartiib tartiib eeygii wuu aqbalay Nancy haweeneydii. Wax walba si fiican ayay u socdeen laakiin nasiib xun ayaa yimid. Maalin John isagoo ka soo laabanaya shaqada ayaa shil lama filaan ah galay. Dadkii oo dhan waxay u yimaadeen aaskiisa laakiin eeygii ma fahmin sababta mulkiilihiisa uusan u soo laabanayn. Wuxuu fadhiistay albaabka hortiisa isagoo sugaya. Maalmaha waxay isu beddeleen toddobaadyaduna bildhan. Ugu dambayn eeygii wuxuu go'aansaday inuu mulkiilihiisa raadiyo. Markii hore wuxuu tegay goobtii uu John ka shaqayn jiray. Dadka halkaas joogay waxay madaxa hoos u dhigeen murugo darteed. Kadibna wuxuu u gudbay suuqa iyo baararkii uu John booqan jiray. Wuxuu marba meel raadinayay isagoo ku wareegay nusdalka balse wax raad ah ma helin. Sanooyin ayaa sidaas ku dhaafay. Maalin ayuu is yidhi bal aan guriga dib ugu laabto waxaa laga yaabaa inuu mulkiilahaygu halkaas ku sugayo. Isagoo rajo leh ayuu ku laabtay xaafaddii hore laakiin gurigii wuu madhnaa. Markaas ayay Nancy aragtay eeyga. Waxay go'aansatay inay korsato. Laakiin ninka guriga cusub iska lahaa ayaa neceb eeyaha. Si xoog ah ayuu eeygii uga saaray guriga. Nancy aad bay uga naxday waxayna saaxiibadeed u sheegtay dhacdada. Dhammaantood way ka caroodeen sababtoo ah eeygu wuxuu noqday xayawaanka xaafadda oo dhan ay jeclaadeen. Waxay isugu tageen guriga ninka wuxuuna cabsi darteed gaarigiisa ku cararay. Kadib maalintaas cidna mar dambe kama saarin eeyga guriga. Si kastaba ha ahaatee eeygii gudaha ayuu ka jabnaa weli murugaynta geerida mulkiilihiisa. Maalin ayuu si aamusan u baxay. Dadku markii ay ogaadeen waxay u baxeen raadin. Ugu dambayn waxay ka heleen isagoo yaal agta qabrigii mulkiilihiisii hore isagoo neeftiisii ugu dambaysay sii baxday.